waxaan ku hadlayaa afka qabiilka beelweynta reer maxamuud guuleed oo degmada caabud waaq cabasho baan nahay odayaashiina waa nahay qabiilkaas ballaaran oo reer maxamuud guuleed waxaan ka cabanaynaa maamulka galmudug macal dhusmareeb iyo caabud waaq labadaba waxaan ka tirsanaynaa uga cabanaynaa cadaalad xumo aanu tirsanayno annagoo ah beelweynta reer maxamuud guuleed kana tirsan beelaha caabud waaq degan oo nabadda jecel oo dawladnimada jecel oo maamulka jecel oo soo dhaweynaya nabadda iyo si walba ummadda dhaqankeeda wanaagsan ah waxaanu ka tabanaynaa labada maamul oo maamulka guud oo galmudug iyo midka caabud waaq labadaba kan galmudug wax maamul ah oo aanu ka qayb galnay oo xubinna kuma lihin annagu halkaas waxbaanu ka tabanaynaa maamulka caabud waaq waxaanu ka tabanaynaa gebi ahaantiisba cadaalad xumo beel dhan baan nahay oo beelweyn reer maxamuud guuleeda hal qof oo shakhsi ah municipio iyo haddii ay kuudmaayo midka ugu hooseeya municipio canshuur qaadka boonada gooya iyo heer gudoomiye inta ka dhaxle midna kuma lihin ma garanayno waxaan ku weynay macnaha oo garan mayno beel yar ma ahayno kumaanaan waayin dad waxtar xun oo quality yar oo kumaanaan waayin waxaan ku weynaa cadaalad xumo waxaana mas'uulka ragga maamulay oo uu madax u yahay gudoomiyaha degmada caabud waaq waxaanu ka cabanaynaa oo sheegaynaa maadaama aan waxaas weynay waa aanu xaq u lahayn waxaanu u sheegaynaa caalamka iyo galmudugba ama degmada ha ahaato ama gobolka waxaanu u sheegaynaa maadaama sidaas xaqdarrana kugu sameeyey inaanan midna la shaqaynayn maamulka gobolkana la shaqayn mayno kan degmada caabud waaqna la shaqayn mayno mas'uuliyaddaasna waxaa qaadaya haddii dhib ka yimaado gudoomiyaha degmada caabud waaq iyo ku-xigeenkiisa waxaan ku kordhinaa annagoo degmada caabud waaq ka mida dadka beelaha degan ah hanti fara badan iyo magaranaysaa dhaqaalo fara badan iyo ganacsi badan inaanu soo gelino maadaama aanan qayb ka ahayn maamulka degmada caabud waaqna inna loo madax banneeyo si nabadgelyada waafaqsan haddii nala soo maaragtay hawshanada la geliyo lanala inkiray waxaan u sheegaynaa inaannu gacmaha la soo geli doonno shantanadana isaga celin doono haddii hantidanada la soo hungureeyo oo maaragtay maamulkaas cadaalad darrada ku dhisan uu maaragtay haddii la kulmaayo la soo aado xoolahanaga iyo maalkanaga iyo canshuurkeena waxaan u sheegaynaa wixii ka yimaada iyagu inay mas-uul ka yihiin gudoomiyaha degmada waxaan u sheegaynaa sida aan nolo kaga tegey oo aan naloo tixgelin oo qaybtii aan lahayn iyo qorshihii lahayn nalo kaga gudbay annaguna wax la shaqayn ah haba yaraatee inaanan la samayn doonin intaasaan ku soo dhawaynaynaa intaasaan saxaafadda gelinaynaa intaasaan beesha weynaa degmada caabud waaq ku soo dhawaynaa beelaha dega yaan u sheegaynaa maamulkaan u sheegaynaa arrimaha gudaha ee galmudug baan u sheegaynaa sidaasaan ku soo dhawaynaynaa ummadda dhaqaalaha laga qaado ummadda haddii alla kuu samoogeliyo wax kasta oo maamulka degmada caabud waaq lagu soo magacaabo ummadda u horraysa dadka unama jecel baana dadka haddii alla kuu samoogeliyahay masiirkooda iyo haddii alla kuu degaankooda shaqeeyaanna waxaan leenahay gaadiid waxaan leenahay guryo waxaanu leenahay baqaaro inta canshuur baa nala ka qaadaa waxaan u sheegaynaa maamulka degmada caabud waaq iyo midka galmudug intaba inaan waxba nala ka weydiin karin annaga maadaama aan weynay haddii alla kuu samoogeliya xaquuqdannadii midnimadannadii ummadda aan kula shaqaynaynay waxaan u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed ama galmudug ama degmada caabud waaq wax alla wixii ka yimaada haddii hantinadannada iyo maalkanaga la soo fargeliyo wax alla wixii ka yimaada inuu mas-uul ka yahay gudoomiyaha degmada caabud waaq markii uu nagu sameeyey qabyaalad aan ku fiicnayn dalka oo wixii annagu aan lahayn uu siiyey jifadii asagu islahaa buu siiyey iyo ninku jeclaa annagana wuxuu naga tagay meeshii